shacabka ismaamulka Gaarisa ayaa maanta u dabaaldegaya guul weyn oo caalami ah kadib markii gabanaha ismaamulka Gaarisa mudane Nadiif Aadan Jaamac lagu sharfay abaalmarin caalami ah. mudane Nadiif Jaamac ayaa abaalmarintan caalamiga ah lagu guddoonsiiyay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska kadib dadaal uu ku horumariyay adeegyada caafimaadka ismaamulka Gaarisa. gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa ayaa lagu abaalmariyay abaalmarinta heerka sare ee gudoomiyaasha 2025 qaybta doorashada dadweynaha taasi oo lagu maamuusay hogaamintiisa wax ku oolka ah ee keentay horumarka la taaban karo oo ka jirta qaybta adeega caafimaadka ismaamulka Gaarisa. abaalmarintan ayaa timid kadib guulo dhowr ah oo maamulka gabana Nadiif Aadan Jaamac ka gaaray adeegyada caafimaadka, waxaana ka mid ahayd casriyeynta cisbitaalka Balambala oo loo dalaacsiiyay level 4 noqdayna xarunta ugu horeysay ee miyiga Kenya oo laga hirgeliyay isticmaalka adeega caafimaadka ee dijitaalka. sare u qaadista tayada ku dhawaad 104 xarumood oo caafimaad oo ku kala yaalo ismaamulka Gaarisa, shaqaaleysiinta boqolaal xirfadlayaal dhanka caafimaadka iyo qalabeynta cisbitaalka Gaarisa Referral Hospital oo hadda bixiyo adeegyo gaar ah sida qalliinka wadnaha carruurta iyo adeegyada loo yaqaano endoscopy oo ah hab casri ah oo loo adeegsado si loo eego gudaha jirka bukaanka iyadoo aan qalliin lagu sameynaynin. abaalmarintan oo ah mid lagu maamuuso hogaamiyaasha heer gobol ee qaaradda Afrika iyo Kenya ayaa lagu qiimeeyaa dadaalka iyo waxqabadka laga gaaray horumarinta adeegyada bulshada gaar ahaan dhinaca caafimaadka. gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac oo fursad u helay inuu khadbad halkaasi ka jeediyo ayaa sheegay in abaalmarintan aanu u gaar ahayn isaga shakhsiyan balse ay tahay guul ay wada gaareen shacabka ku dhaqan magaalada Gaarisa oo ku suntan adkaysi shaqaalaha caafimaadka oo har iyo habeen u taagan u adeegida bukaanada iyo dhammaan hay'adaha iyo bahwadaagta taageerada joogtada siiyay horumarinta adeega caafimaadka. waxa uu intaasi ku daray gabanaha ismaamulka Gaarisa in horumarka ay Gaarisa ku tallaabsatay uu yahay natiijada tooska ah ee nidaamka deegaameynta iyo ka go'aanshaha shacabka ee dhinaca horumarka iyo caafimaadka. waxaa sharaf weyn ah in waxqabadka aan ka sameeyay gudaha Gaarisa lagu aqoonsado madal caalami ah. tani waxay muujinaysaa awoodda hogaamintayda iyo muhiimadda ay leedahay iskaashiga shacabka, ayuu yiri Nadiif Aadan Jaamac. ugu dambeyntii gabanaha ismaamulka Gaarisa mudane Nadiif Jaamac ayaa ugu baaqay in shacabka iyo danayaasha kale ay sii wadaan wadajirka iyo taageerida maadaama safarka lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee ismaamulka Gaarisa uusan halkan ku joogsan doonin.